بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وذا السلام داود يال ملكستو الدنيا دافئة كجوكتان برتان نقد داون سنة بنقلص عتان وقلبي تي في هنتي أنا جاية سوفر استعاوة وايو وحربي وحيرنا كبياميو ورنتي دتكو كم ميرستين لما قضب بنكاليو قضب كورس وحنا كورينيا كل بحالة الصومالي كسبنتها لكن وحنا كورين دونا قبل ذا وقوي waxaa jirta dhowr jeer oo fara badan oo ka hadalnay amba aan ka hadlay laftaydu aan waxyaalo fara badan oo qarsooni aan dadka u biyaaminay haddaba shaqadeedu waxay tahay wixii dowdoloola amba khaladaadada aan arkayo ee garaadkaygu siiyay dadku iska indhatirayna dadka u sheegno waxaa jirta wax badan ay dadku ogyihiin runtii ayna ku dhici karin amba ayna awood u lahayn inay ka sheegaan meediyaha amba qoraal ku bixiyaan amba hadal amba oraahdoodaba ka dhiibtaan لكن إلهي بنسيه مدح بناني إلهي بنسيه حرية إلهي مو ينقف بالآدمية ولا قبقة مجرته مركا وانا دتك وشجنا حقيقة مركز تاجن الرنتة كجرتا دتك نوع حكوانين يا أنكو العلنية ونشجيا ولا حاجة بنينا قضب بنكالي قضب كورس كالي دونا نقد دونا تركوب كي ديوان قلنتي معمولك قبل ذا تاس أو مركب بلامسي iyo ka hor intayna bilaabmin aan dhowr jeer ka hadlay amba dhalinyaro fara badan oo isku fikirayaan amba aragtidaas aan wada qabnay ka hadleen runtii waxa jirta salaadinta gobolka awda ka soo jeeda runtoodiina ka hadleen laftoodu ay arrinkaasi lahaayeen mar dib loo dhiga marsana tahay say noqotayba saan ogsoonahay wax kasta oo bilaamaya amba wax kasta oo la rabo in la socodsiiyo waxa lagu socodsiiyaa marka hore gobolada galbeedka taas waa xaqiiq jirta qof inkiray ma jirto waan ognahay haday noqoto hub kuligid haday noqoto lacag la hirgelinay haday noqoto fikir la iibgeynay haday noqoto waxay rabtaba haato taasna waxay ahayd midyadii un lamida oo dawgii amba jidkii arrimaha hore soo mareen un dib u maraysay haddaba waxaan sameynay degniin badan oon lahayn warka jooga waxaan waxa weeyaan wax ay reeray sadbursi ku raadsanayaan waxay reeray adduweynaha iskaga iibinayaan mabda'ooga amba ay rabaan inay awoodooda ay dadku tusaan waxa weeyaan wax beena waayo dadka amba tirada ku jirta nacamtii waxaan ka shaqaynaya waan ognahay inay beel tahay waxa kale aan rabnaa inaan ka sheego runtii markii ay arrinkaasi bilaabmay ee diiwaangelintu bilaabmay waxa jirta in hacks la sameeyay oo dib loo dhigay gobolada kale miyayna abaar ka jirin markii la istirnay gobolada waqooyi oo dhan ayna abaartu ugu darneed ka jirin gobolada galbeedka markii arrinkaas soo dhamaaday waxa la yidhi gobolada bariga lama bilaabayo iyo beelaha dhexe waayo abaartii baa jirta waa in dib loo dhigaa waxa la rabay in loo fikiro sidii bal numberkan amba tirooyinka ay dadka markaa soo baxday wax la iskaga bedeli lahaa wax la isku hoosgelin lahaa iskaam weyn baa runtii ka dhacay waa yandaro tuugnimo socotay ahayd waan ogeyn dadka waan u dignay laakiin waa iska indhatireen mid kale rabaa inaan igu daro waxaan ognahay inuu maamulka Hargeysa amba gobolada waqooyi wax sharciya ayna ka jirin maanta ugu dambeysay waxa ka dhawaajiyay mas'uuliyiintooda mid kamid ah Faysal Caruuraaba ka dhawaajiyay horena uga dhawaajiyay anagu lafteedu waan sheegnay war wax sharciya oo shaqeeya amba dadku u hoggaansan ma jirto laftaydu waan ka yimid waan soo aragnay dhulka waan horaan u soo aragnay waan joognay waan ku dhalanay 2 sano ka horna waan ka yimid waana sheegnay intaas war dadka waddanka wada degan galbeed ilaa bari waa dad daacad ah oo isjecel oo nadiif ah laakiin maamulka meesha ku jira ayaa wuxuu yahay maamul qurna qabyaalad ah musuqmaasuq iyo foolxumo dad ku dhex wada markaas waxaan inii sheegayaa mar labaad inii biyaaminaya war waxaan haska indhatirina meeshan inaan wax sharciya ayna ka jirin amba sharcigii la samaystay ee dastuurka ku qoran inaan markasta lagu dhaqmin oo la garab maro waayo waa awoodda keentay ku taakuleenta keentay waxyaalo fara badan baa keenaya maadaama ay saa tahay waxa meesha markaa ka baxaya inay meesha tahay sharci amba nidaam hab dowladeeda markaas maxaa
dadka bini'aadanka qofka ku qasban amba dadka bini'aadanka amba bulshada meel wada degan ay markaas awood u leeyihiin waxay xaq u leeyihiin in iyagu aayahooda ka tashadaan iyagu ay isnidaamiyaan iyagu ay ilaashadaan dhulkooda macdantooda baddooda iyo dee ilaahay kasoo dhulka uu ku beeray iyaga ka mas'uula marka waa in iyagu ay dib inta isku soo laabtaan ay wada tashi yeeshaan ay ilaahay kasoo dhulka ilaahay ku beeray iyagu ka mas'uulka yihiin inay aayahooda ka tashadaan waa lama huraan meeshaasi waan ognahay inay musuqmaasuq ka jirto boqolaal milyan oo dollar oo ayaa lagula kacayaa ayaa dadka lagu kor cunayaa siiba ah xukuumaddan maanta fadhida ee kulmiya waan ognahay inayna xukuumad cadaalad ahayn waan ognahay inay xukuumad baaba'an tahay ilaa bari ilaa meel kastaba dadka waqooyiga wada degan inay u keentay gaajooyinkaas iyo abaaraha faraha badan la xitaa iyadaa wadatay oo keentay waayo haddii ay dadku daacad yihiin ay hoggaanku daacad yahay waxaas may dhacdeen laakiin waxaad arkaysaa inay meesha musuqmaasuq ka jiro waxaad arkaysaa in 2 milyan oo dollar ilaa 3 milyan oo dollar guriyo lagu iibsanayo ay qorbaa kaga iibsanayaan oo cadeyntii haynaa oo factiga haynaa waxaasina waa xukuumaddaas iyo inta ku hoos nool ee la shaqeysa runtii haddii laga baqayno wuxuuna waa reer markaas war dadka Somaliland degan ama gobolada waqooyiga degano magacii Somaliland la oran jiray waqtigii British joogay ayuu magacaas dhamaaday meesha waa reer kastoo degan aayahooda iyo noloshooda ay ka tashadaan marka tiimaanta timaado way haddii meesha xukuumad jirto amba madaxweyne jirto qofka madaxweynaha ah ee bulsho maamula amba ka turtumaya dadkaasi mas'uuliyadda uu ilaahay hortiisa ugu dhaartay uu qaaday mas'uuliyadooda qaaday waxa uu inuu kula dhaqmayo sida reerkiisa oo kale waayo haddii ay caruurtiisa iyo reerkiisa gurigiisa soo kula dhaqmayo ay mas'uuliyadda ilaahay ka saaran tahay ay dadka ka saaran tahay mas'uuliyadda ilaahay ka soko dadkii hadduu meel fiican mariyo waxbarashadooda nadaafadooda caafimaadkooda daryeelkooda waxa imanaya administration dawlad ah oo meesha taala waxa lagu maamaha waxa dadku un badan oraada ka yeersiya nabad baa taala nabadda dadka degan baa keensaday nabadda xukuumadda ma keensanin xukuumaddu waxay keentay gaajo keentay dadkiina macluul dhintaan lagu hortamisleeyo wax lagu hor cuno adduweynaha wixii la soo dhacay dadka loo keen lahaa in agtooda lagu cuno oo lagu shirshirtago guriyo lagu iibsado xoolaha iyo cashuurta laga qaadayo islaamaha tamaadhada iibinaya saliidda iibinaya suuqa fadhiya in inta wuxuu laga qaato la cuno xoolahoodii ayaan daradaas dadka heysata marka waxaan oran lahaa waxaas inay ka tashadaan weeyaan qodobkii labaad oo soo gaabanayo oo hore ugu dhawaajiyay markii hore hadaan hal mar ku laabto waxaan oran lahaa numberka soo baxday tirada soo baxay waa scam tiro jirta maaha waa tiro been ah isdiiwaangelinta wixii ka soo baxay waa been waayo haddii aan dib ugu laabano 2 sano ayna soo dhaafay amba 3 sano kastaba NDP-du waxay sameyn jirtay tirakoobyadii la sameyn jiray iyo kaniimada islaamaha takalabaad waxayni keenana oo xaqiiq ah oo ka gabanin tiradii gobolada Soomaaliland amba tiradii gobolada galbeedka ahaa waa gobolka awdal iyo naaxweeda tiradii oo buuxday oo markaas dadkii ay meesha goobjoog ka ahaa ay qorteen oo ay hayeen oo numberkii oo buuxa ayaa la keenaya marka waxa weeyaan waxyaalahan iniga digan reer awdalow tan baa kamid ahayd والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا نيجا بحي واينويو مركلة adios